ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Raxma Xaaji Maxamed Suldaan ayaa maanta deeq isugu jirta lacag iyo raashin ka kooban bariis, sonkor iyo timir u qaybisay qoysaska fuqarada ah ee haysta carruurta qaba baahiyaha caafimaad ee gaarka fursadan ayaa waxa ay timid kadib markii isuduwaha samafalka madaxtooyada ee gobolada Awdal iyo Salal Marwo ayaan Cali Cumar ay ku marti qaaday marwada madaxweyne ku-xigeenka inay indhaha soo saarto carruurta baahiyaha gaarka qaba ee alaaba taageerada u geysato isuduwa ayaan oo marwada madaxweyne ku-xigeenka siinaysa warbixin ayaa waxay carabka ku dhufatay carruurtana darkaysid intooda badan waa wada buur family alla mooyo cid kale oo maqan ma jirto kolbaka waxa raashinka igu jiibto waxa arki jirtay in cajalada aan video kaaga soo duubo laakiin maanta waxa arkaysaa iyadoo practical ah kolleeyde hawsha aad ka qaban doontana ilaahay baa xaqan ku saaray waa dadka danyaraysan cid u maqan ma jirto saakumullah khayr wixii hore qabatay iyadoo maanta tahay ciid al-fitr iyadoo maanta ay tahay waxaan maxay haydeenay ay marwadu ugu inay siiso carruurta ay lixiyaan carruuraha qeyrkooda ayaa ugu tala gashay sidaas oo kale ayaa marwada madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Raxma Xaaji Maxamed Suldaan waxay carabka ku dhufatay baahida carruurtan baahiyaha caafimaad ee gaarka qaba ay aad uga ballaaran tahay intii ay filaysay isla markaana loo baahan yahay in garab laga qaato wixii aanu midayna waxay ahayd hablo iyaguna reer Awdal oo aanu Ingiriiska isku aragnay oo iyaguna wuxuuga igu soo dhiibay iyo wixii aan anigu u keen jiray baa waxaan sidii aad kala soo qayb gashaan oo carruurtii ciid aad u geysid laakiin dhibaato ciidii ka badan baaban waxaan ugu imiday meeshan oo dhibaato weyn baa taala cidii ilaahay dartii ubadka wuxuu ugu qabanayso oo dhan mas'uuliyadeedu way saaran tahay gobol ma saara cidna ma saara Soomaaliland oo dhan way saaran tahay ubadka caynkaaya ee dalka ku dhexnool cid kasta oo wuxuu qabanaysa dal iyo dibadba way saaran tahay insha Allah biidnillaahi kariim annaguna wixii aan la qaban karno waanu la qabanaynaa Abdalla Ali